isbitaalka weyn ee ku yaala gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa joogay dhakhtar isagu ka shaqaynaya dhanka qaliinka. Dhakhtarkan oo ay keentay hay'adda Mercy USA ee fadhigeedu yahay waddanka Mareykanka ayaa waxaa dhibaato weyn ku haya mas'uuliyiinta hay'addaas ayaa waxay u xaqiijiyeen warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada Laascaanood in dhakhtarka iyo hay'addaba ay caqabad weyn ku hayaan shakhsiyaad ka howlgala gudaha magaalada Laascaanood qaar ka tirsan shaqaalaha hay'adda ee sanduuqa badbaadada carruurta ee UNICEF waxayna sheegeen in dhakhtarka weyn ee magaalada Laascaanood ay keeneen dhakhtar ninka qaliinka iyadoo dhawaan mudaharaadadii ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood lagaga maarmay in loo qaado deegaamada ku hareeraysan gobolka Sool. Hay'adani ayaa waxa ay damacsaneyd in gudaha magaalada Laascaanood ka hirgeliso MCH weyn kaasoo ay qalabaysay hay'adda Mercy Crop ayna bixinaysa shaqaalaha ka shaqaynaya mushahaaradooda balse markii dambe hay'adda UNICEF ay caqabad ku noqotay sidii shaqaalahaasi loo gaarsiin lahaa waxyaalaha ay ku shaqayn lahaayeen ee dhanka daawooyinka iyo kidka. Mas'uulka hay'adda iyo dadweynaha magaalada Laascaanood ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay caqabada lagu hayo isbitaalka magaalada Laascaanood iyo qaar ka tirsan howlaha magaalada caafimaadka. wanaag la kulmay dhakhtar caalami ah oo meel fog laga keenay oo maanta la yiraahdo hay'adda wadii waa la caqabadeynayaa inta anagu raali ka anagu beeshigiya ka gacanta goday anagu madaxa xabad naga dhacday kooyina la mid yihiin taa waxaan ku leenahay wixii ka soo jeestay hay'adda iyo doctorkaaga inaanu la jaalay doono waxaan ku sheegayaa dadka aan ogolayn in isbitaalku shaqeeyo ama garanaysaa waxqabadka gobolka ama shacabka ama maadaama lagu daweeyo gurigeygii garanaysaa dadka inoo soo booqanayaan tan jidku soo dhigi bixayn lagu daweeyo gobolkeygii alxamdulillahi rabbil caalamiin kii hore uga hadlay halka waxaa jooga dadweynihii ilaahay ka soo u badbaadiyay dhakhtarka ay keentay hay'adda Mercy ee madaxa u yahay Axmed Abdi intii hay'addu noo timi intii hay'addu ilaa 7 waararka 2005 waa joogtay markii hore qaybta TV-da qaatay markii waxa shaqaale kale oo yar bay qaatay bishii August 2011 kana waxay qaatay maternity wardka iyo qaybta carruurta surgicalka oo ah meesha dadka lagu tiyaatarka iyo muxuu ahaa intaas qaadatay iyo MCH cusub in la furo hadal iyo dhamaantii hawsheeda qaybahaas waxay hawshooda bilaabeen dhaqada bishii August iyo ilaa hadda way shaqaynayeen inkastoo markii hore dhakhtarka hore loo waayay dhakhtar qaliin oo gobolkuna awal hore u joogin in badan loo maray rafaad badan loo maray nasiib wanaag bishii koowaad bartamaheedii baa dhakhtarka la helay dhakhtarkuna saani shaqadiisa wuxuu u bedelay aakhirkii bishii koowaad ilaa tan hadda oo maantadan oo xataa kuwa qalayo marka hadalkii iyo dhamaantii hay'addu waxqabadkeedii dadka halka ka muuqday ee aad ku arkaysan shaashada waxa weeye dadkii rag iyo dumarba dhakhtarka ay hay'addu keentay wuxuu qabtay dadkii wuxuu taray wuxuu qabtay oo maxaa uu badbaadiyay ilaahay ka sokow anigu waxaan joogaa markaan ka hadlo shaqaalaha caafimaadka horta kamid ahay haddana waxaan joogaa qaybta nugusha haweenka iyo maternity wardka ee qaybta nugusha iyo carruurta kala badbaadinta ee hospital Laascaanood intii dhakhtarkaas joogay 22 mudada bisha isugu ah ee maanta laga bilaabo isla ah wuxuu dhakhtarkaas badbaadiyay 22 haweena ee qaar uu forceps kaga dhaliyo qaar uu cesarean ku sameeyo qaar uu dhiikar ka daweeyo qaar uu anemia ka dambeeyo emergency obstetric care wax la yiraahdo qabtay marka waxaanu leenahay dhakhtarku sidii uu noola joogaa waa noo sheegaynaa dhakhtarku 3-4 qaybood aan idin soo sheegay maternity ward pediatric tiyaatarka iyo MCH-ka oo ah meesha laga soo refergareynay dhakhtarka laga soo refergareynay muxuu ahaa carruurta iyo hooyada tan nugulka saan idin sheegayba waa isku xidhan yihiin dhakhtarkuna waa link u dhaxeeya MCH-ka iyo u shaqeeya iyo wixii waararka aba haday rag tahay oo isagu shaqo dheeraad ku ah iyo haday tahay qaybta maternity-ga iyo pediatric-ga intaasuna isku hay'addu mar bay wada qaadatay alqadad baan hadda waxa ugu weyn taagan waxa weeye dhakhtarka hawshiisa waa wataa MCH baa xikaataysan xagga UNICEF la ka taagaysan baa ka dumar aan responsible ka wahaa ee waa rishaashka waxa uu kala daaweeyay dhakhtarka wax qabadkiisa ayaa halka idinku soo bilaabay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh oo baaray 265 qof ayuu fiisiteeyay kuma jiraan qaliimadu
iyo hawlaha kale iyo umulisooyinka kuma jiraan waa inta uu fiisiteeyay waa 265 qof weeye kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyin kala gedisan ama cudurro kala gedisan bariyihii horena uu aadi jiray Garoowe iyo Hargeysa Burco aadi jiray okay sidaas awgeed waxaan ka bacdi dhacday ama aan maqlay oo soo gaadhay in dhakhtarkii lagaga kacay magaalada gudaheeda lagaga kacay lana doonayo dhakhtarkaas in la eriyo waana nasiib daro maalin walba dhakhtarkii la ascaanood yimaada ama qofkii wax u qabanaya yimaadaba in qori loo soo baxo ama loo hanjimo ama shakhsi yiraahdo aniga eriya ruuxaantii nasiib daro aad iyo aad u weeye tusaale ahaan maalintii dhaweydee rabshada ka dhacday magaalada Laascaanood dhalinyarada ku dhaawacantay way fadhiyaan waa kuwa hortayda fadhiya qaar gacmo go'an qaar xiidmaha la qalay oo xabadihii laga soo saaray oo loo qaadi lahaa Hargeysa intay ku sokayso ama dhul aan laga rabin loo qaadi lahaa baa gurigooda lagu daaweeyay ninkii sidaas ahaa maanta mar haddii la yidhi waa la eriyayaa oo hay-adii fangareynaysay ee xamar ka soo kaxaysay oo Hargeysa ka soo kaxaysay oo guriga u karaysay dejisay Laascaanood la yidhi hay-adii kama hawlgeli karto magaalada gudaheeda wallahi waa nasiib darro aad iyo aad u weyn markaa sidaas awgeed hay-addu waxay kale oo maamuleysay oo ay gacanta ku haysay MCH inay ku soo kordhiso gobolkeena aad iyo aad run ahaantii u ballaaran yahay baaxadiisu ballaaran tahay MCH hore oo ka furana waa jireen oo si fiican u shaqeeya inagu wax kasta oo inagu soo kordhay ilaahu ma geed hoostii daawo ama raashin yar ama biyeer waxa geed hoostii ma la inoo yimaado oo qof faa'iido inoo fariisto geed hoostii damba inoo tayn Laascaanood ay nahay MCH-kii hay-addu ay gacanta ku haysay hay-adda dhakhtarka keentay MCH-ka gacanta ku haysay ee maamuleysana waxa la yiri ma jirto oo shaqeynaa meesha marka sidaas oo wallahi nasiib darro weeye ya arinta waxaan dadweynaha markaa u sheeganaa hay-adda laga qayb qaato sida hawlaha iyaga wax looga qaban lahaa haddii Laascaanood ku talagashay dhibaatada inay ku jirtana oo dadweynaha sida raali uga yihiin dhakhtarkaasi la eriyo oo MCH-ka sida lagu qafilana taa okay waa sax weeye waa hagaag haddii aad wax ka qabanaysaana idinka idin taala anagu diyaar baan nahay dhakhtarkii baan la shaqeynaa hay-adda laftigeeda aan la shaqeynaa marka diyaar baan u nahay assalaamu calaykum ay sugu nimid shirkan usoo qaabinay in xogaha dhibaato corruption jiro waa ogtiin gobolkeenu dhaqaatiir la'aan dhibaato jirtay waxaanu kaysanay dhakhtar dariiq dheer baan u marnay waxay inoo keentay hay'adda Mercy mas'uulkeeda Axmed ilaahay ha ka abaalmariyo ma haddana waxaa la doonayaa in dhakhtarkayga naga kaxeeyo shakhsiyaad baan la soo weeraray oo dhakhtarkayga doonaya naga kaxeeyo marka waxaynu ka hadlaynaa inuu doodana waxay tahay bay u qabtay yahay dadkii dhaawacay inoogu dambeeyay magaalada dhibta ku gaadhay waa ninkii inoo daweeyay kii uu qalay dadkii dhaawacay inoo daweeyay dhakhtarkuna ma aha dhaawac kaliya wuxuu qabtaa waxyaabo fara badan cudurrada guud haweenka qalliinka intaba wuu inoo qaabilsan yahay ka dhaqaale fara badan baa lagu bixiyay codsi dheer baan u galnay ilaa Muqdisho ka soo kaxaynay Hargeysa tarag ugu galnay marka muhiimaddu waxay tahay inagoon cidna cambaarayn oo maagin inaan haddayna shacabka gobolka ku dhaqnaa inaan u hadalno qadiyadeena iyo dhakhtarkeena iyo wixii inagu dadku waxay noo qabanayeen waana gobolkeena dadkeena wax ku baabi'i jireen Garoowe iyo Hargeysa wadada u dhaxaysa maanta waxaynu helnay dhakhtar halkeena inuu ugu daweeyo sida ilaahay ha ka abaalmariyo anigoo cibaado si cilmi oo ka mas'uula qaybka meel waarka waxaan idin cadaynayaa ama idin sheegayaa in qaybta aan anigu ku shaqeeyo meel waarka lagu qalay rag shantii nin ku dhaawacmay mudaharaadka shantaa nin oo nin ka mid gacanta la gooyay qaar ka mid ay caloosha ka dhacday raggaana haddii la geyn lahaa meel ka fog Laascaanood ay dhiigbax ama u dhiman lahaayeen ama khatar naftooda u geli lahayd alxamdulillah waxaa lagu badbaadiyay magaaladeena gudaheeda raggii aan beeshkiina hadda way fadhiyaan iyaga oo gurigoodii iyo dadkoodii ehelkoodii ugu imaanayeen kusoo booqanayeen meeshii ay jiifeen dhakhtarkii gudihiisii oo ku baananayeen oo wax kasta siinayeen marka dhakhtarka qalliinka ay noo yimi mar kasta waxaan jecelahay inuu nala joogo wax allaale wixii ka xun ama doonaya in ay dhakhtarka qalliinka naga tago raali kama nihin waana ka soo horjeednaa MCH-ka la yiri hal la xiro iyo dhakhtarkaasina waa hay'ad ka socotay waana group hadduu dhakhtarkaasi tago MCH-ka la xiro isna wuu tagayaa marka waxaanu ka codsanaynaa wax allaale wixii jecel wanaaga Laascaanood dhakhtarka weyn ee Laascaanood in uu wax nagala qabto oo arko cabashada yada in dhakhtarkaasi uusan naga tagin wax laga qabto ayaanu anigu dadweynaha ugu baaqaynaa beeshinkiina waa fadhiyaa hadda heerniya ayuu qalay gaanshuud oo ayuu ka shaqeeyay doctorku
dad badan oo midiyo la soo geliyay ayuu ka shaqeeyay oo naftooda badbaadiyay qaybtii kale ee xagga maternity-ga gabadhii ka shaqeynaysa ka sheekaysay oo inta hooyadeeda kala badbaadinayo uur kale ee labada nafood kala badbaadinayo deeda ka soo sheekaysay cigaal uu ka sheekeeyay qaybta uu fadhiisto doctorku ee outpatient-ka intii ciyaalka uu carruurta ka shaqeeyo de waxaan ka codsanaynaa wax allaale wixii jecel wanaagga laascaanood dhakhtarka laascaanood ummadda laascaanood in dhakhtarkaasi noo joogo ayaanu codsanaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu noo joogo oo dhakhtarkaagu noo furmo oo noo shaqeeyo dhibaatooyinku soo gaadheen anigu waxaan hayaa nin caloosha ay ka gaadhay mataqaanaa 2 jeer laga qalabration laga sameeyo aan u qaadi lahaa meel aan awood u lahayn runtii waxaan u malaynayaa inaanay jirin qof Soomaali ah oo reer laascaanood ah inuu difeertayn karo dhakhtarka ilaahay keenay halka kan iyo hay'adda wadatoona inaan la difeertayn karo qof islaami oo difeertayn karo qof reer laascaanood asal inuu difeertayn karo sababtoo ah maxay waxaanu qaban jirnay magaalooyinayna lahayn maadaama ilaahay inoo keenay oo wiilala jooga maanta president yahay oo aan intaan ugu joogay hubo ilaa 30 qalin ilaa 40 qalin baan hubaa oo rag iyo dumar bale intaan ugu joogay bil baan joogay waxla intaas aan hubaa ilaa 18 cashaan joogay marka waxa weeye maadaama ay sidaa tahay oo dhibaato weyn la soo furtay anigu ma garan karo qofka Soomaaliga ama reer laascaanood ma jiraan leeyahay anigu qof tifirtay ma jiraan leeyahay waa dafirsan arrinta ayada ma jiraan leeyahay waxaan leeyahay waa mahadsan yahay ninkaasi waa nin aad loogu intifaacay waa nin gacmihiisu qayb qabto waa nin loo baahan yahay inuu joogo oo sidoo ku joogi lahaa ilaahna laga baryo hay'adana lagu garab galo laakiin aan wax kale waxaan ka hadlayaa aniga hooyooyinka laascaanood ee ay ka soo gaadhay halista dhibaatada khatarta ah oo wata gabadh ugu oo habeen hore foolinaysay oo uu dhakhtarkaas doctor bidix si degdeg ah oo xabashada uu sharaf leh iyadoo ilmahaygiiba uu igu badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin dhakhtar la'aan waa la dhintaa waxa weeye ilaahayna wanu mahadnaqayaa dhakhtarka iyaga iyo hay'adayada iyo kuwii noo keenay ayaan ugu mahad celinaynaa halis dhibaato ah ayaan gaari jirtay muraha iyagu jidkay ku dhiman jireen dhaawac iyagu jidku ku sii go'i jiray raf baa la sii marin jiray qarash tiro badan baa laga qaadi jiray macnaha waxa weeye dhibaatada halista ahayd aan qodnay guryaha iyaga dhexdooda isbitaalkii ahaa ayaa naloogu fidiyay ilaahay mahadi alxamdulillah waxaan u baahanahay wixii naga qalqaladaynaya iyo wixii naga dhibaataynaya in laga qabto in loogu gargaaro dhakhtarka iyaga cusub ee ilaahay noo keenay badbaadiya 226 qof gacantiisa biidnillah بالله كان الله بدبادي لكن أودي يدفع سمعنا ساعة وحلو بهاي إن الله يسكب وحي مخلوقة واحترية ومدة وحقوق بنية كذلك يدريال كذا وحينية إن لو دايو أو لو كلا كشن أو لو دايو إن الحقوق بطل ما تنبغي تعال وتبغوا اسبتال كلا أصحاب اللي بيجوا وعرقاديو قفنا رالي قال ميسو إسلام رالي قال ميسو إيه رالي قال ميسو هو حلوقة رالي قال ميسو هو هذا رالي قال ميسو أنت وحوي أنا وحنا ورقنا إن قلت كنت هاي أنا وحنا لا لقى دايا بوق وحنا لا لقى دايا بوق مسيء أهل ما أو نصب ما أو إسلام ما أو أهل ما حلو هذا شغيل السلام عليكم عبد الكريم نولل S24 TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.